السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيرت وحنا جنالكن أحمد دارق إني كسر دوادي مقال عصب. dagaalkan waxa uu dhacay xilligii ay socdeen furashooyinkii Furus iyo Room. dagaalkan ayaa dhex maray ciidamadii Furus iyo dagaalyahankii aan weligiis la jebin ee Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. dagaalkan ayaa loogu bixiyay dagaalkii silsiladaha maxaa yeelay taliyihii ciidanka Furus ayaa waxa uu amray in ciidankii Furus la soo xiro lugaha si aysan u baxsan. maxaa yeelay Khalid ibn Walid waxa uu ku soo jebiyay dawladii Furus dagaalo badan. ciidanka Furus way ka hub badnaayeen muslimiinta sidoo kalena way ka ciidan badnaayeen. Khalid waxa uu isticmaalay xeelad dagaal taasoo ah inuu la dagaalo taliyihii Furus oo lagu magacaabi jiray Hurmuz waxa uu qorsheeyay inuu la dagaalo Khalid balse sidoo kale waxa uu ciidankiisii qaar ka mid u sheegay inay soo weeraraan Khalid haddii uu ka awood bato Hurmuz. Khalid oo ahaa taliyahan weligiis la jebin ayaa waxa uu dhulka dhigtay Hurmuz waxaana meesha soo galay ciidamadii uu Hurmuz markii hore la tashtay waxayna rabeen inay hareereeyaan Khalid oo ay dilaan balse nasiib darro waxa ogaaday inay meesha ka socdaan Amr ibn Aas waxa uu soo kaxaystay koox yar waxa ayna dileen ciidankii yaraa inta aysan gaarin Khalid ayaa halkii ku dilay Hurmuz. ciidankii Farisiintana waxay bilaabeen inay isaga cararaan meesha mar haddii la dilay taliyahoodii. dagaalkan ayaa ka mid ahaa dagaaladii ku caawiyay muslimiinta inay furtaan dawladii Furus balse dawladii Furus ma uusan furan Khalid ee waxa furtay Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Allah ka raali noqdo saxaabadii iyo dhammaan intii wadadoodii raacday. waxaan filayaa waxaan kaga faa'iideeyay mawduucani maanta inta ku kulmi doona mawduucan nabada waxa idinkaga tagay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.